السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال dhegeystayaal idin haantiinba waxaad ku guda jirteen cunooyinka faa'iidooyinka laga helo anagoo aan ka soo hadalnay loos iyo waxyaabo kale faa'iidooyinka laga helana waan filayaa inaad wax ka faa'iideen maanta waxaan idin wadaa 5 faa'iido oo ay leedahay cunista kalluunka badan waxyaabo lama filaan oo laga helo wow kalluunka dad badan waa ay neceb yihiin balse faa'iidooyinka ku jira marka ay maqlaan waxaan rajaynayaa in ay badsan doonaan 5 faa'iido ayaan gudagali doonaa ila socosho wacan waxa uu yareeyaa xanuunada wadnaha waxa uu yareeyaa xanuunka wadnaha kalluunka waxa ku jira waxyaabo caafimaad u leh wadnaha cilmi baaris ayaa soo bandhigtay in saliidda kalluunka ay ka caawinayso ka hortagga xanuunka wadnaha number 2 hurdo wanaagsan cunitaanka kalluunka badan waxa uu daawo u yahay dadka ay hayaan xanuunada hurdo la'aanta dadka cuna kalluunka badan ayaa la sheegay in ay helaan hurdo wanaagsan cilmi baarayaasha ayaa aaminsan in ay tani sabab u tahay fitamiin D-ga ka oo ka buuxa kalluunka oo dadka ka caawiyo in ay hurdo wanaagsan helaan qodobka 3 faa'iidada in ay jabka waxa uu faa'iideynayaa niyad-jabka ayuu ka hortagayaa micnaha waxaa la wariyay in kalluunka uu ka caawinayo yareynta niyad-jabka mar kale waxaa la aaminsan yahay in maadada omega-3 fatty acids ay sare u qaado kiimiko lagu magacaabo serotonin oo ah kiimiko maskaxda ku jirta oo kordhisa farxadda iyo fayo-qabka qofka qodobka 4 qurxinta wajiga kalluunka waxa uu qayb weyn ka qaataa qurxinta wajiga sida laga soo xigtay Dr. Nicholas Person oo ah dhakhtarka ku takhasusay cudurrada maqaarka kalluunka laga darsado cunooyinka wuxuu gacan ka geystaa ka hortagga haraha mise maqaarka wajiga oo qofka u ekaysiiya qof da' iyo in wajiga qofka uu noqdo mid nadiif ah haddii aad rabto in wajigaaga uu noqdo qof yar badso kalluunka waxaan kula talin lahaa inaad badsato kalluunka cunistiisa haddii qof waayeel ah mise qof da' gaaray waa in la siiyaa kalluunka si uu u soo celiyo dhalinyaradiisa hore qodobka 5 ee ugu dambeeya faa'iidooyinka ee uu leeyahay kalluunka maskaxda ayuu horumariyaa madaxa maadada omega-3 ee laga helo kalluunka iyo nafaqada ka buuxda kalluunka ayaa ah mid faa'iido u leh caruurta maxaa yeelay waxaa gacan ka geysta horumarinta maskaxdooda caruurta waxaan ula talin lahaa waalidka haddii ay maqlayaan waa in aad ku dadaashaan siinta kalluunka ciyaalkiina yaryar si ay hadhooti markii ay yaraadaan maskaxdooda ay u noqoto mid fresh ah halkaas ayaan ku soo koobayaa faa'iidooyinka laga helo kalluunka iyadoo ay aad u badan tahay balse waxaan ka soo qaatay 5 ugu muhiimsan aan ku xasuusiyo cidaan ahay caqil yacko adigu waxaad tahay kuma sheegayo cidda aad tahay adigu waad istaqaanaa dhegaystahayga sharafta iyo qiimaha badan mar walba waan ku dhahaa balse wax kale aan ku dhaho niyadda igama soo galaan balse waan isku dayayaa wax kale in aan ku dhaho dhegaystahayga